guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa loo tafaxaytay doorashada dalka haddaba gudaha magaalada Dajabula ayaa maalmahan laga dareemayaa in kambeyn ku saabsan doorashada uu ka jiray maalmaha waana mid caadiyan loo yaqaan in doorashada ka hor loo durbaanto musharaxiinta u taagan kuraasta dalka ee kala duwan habdhismeedka kuraasta deegaanka Dajabula ayaa sanad kasta waji cusub la soo baxa kursiga MCA-ga ayaa hadda midka uu ololihiisu socdo magaalada Dajabula shakhsiga loo durbaantumayo ayaa Cabdiqafaar Cabdikariim oo runtii shakhsi aqoon sare leh daadiisuna ay aad u yar tahay waana mid dareensan waxa looga baahan yahay inuu deegaanka ku soo kordhiyo Cabdiqafaar ma ahan midka kaliya ee kursigan u taagan balse waxa uu tanaasulay Cabdifataax Dhuwow iyo Ducaale Umar ayagoo u arka inuu Cabdiqafaar uu yahay shakhsiga mudan ayna isku fikirka yihiin haddaba shirkii beesha aadan dhagax kana tirsan beesha Bahgari ayaa isku raacay in Cabdiqafaar loo qaato kursigan intii munaasabada socotay ayaa waxa meesha ka hadlay qaybo ka mid ah mas'uuliyiintii shirkadda dihineysay hadaladoodina waxa ka mid ahaa sida tan siyaasadda ku jirnay waxaan dhahnay kursiga u tartameynay saa ogtihiin dhammaantiin waxaan u dhaafnay wiil walaalkeen oo ani ahaanteyda aqoon fiican u leeyahay aan maanta u tanaasulay anigoo fiirinaya walaalnimada anigoo fiirinaya danta dadka meesha ku jirta Dajabula maanta anigoo leh maanta waxaad u qaban lahayd dadkan nin kula mid oo ku matali kara oo dadkan wax u qaban kara yaan oo haray anoo leh yaa maanta u tahay Cabdiqafaar Cabdikariim samaad kuma cadeer aqoon weyn baa suleenahay asaga aqoon weyn baa suleenahay oo tolka ugu shaqeyn doono oo maartay oo uu caawin doono Dajabula insha Allah qorshahan aan watay iyo ajendayaasha aan lahaa sayta ugu wareejin doona insha Allah asaga wuxuu kala bixi doona iyo asaga ugu qalabsan doona farxadda ayada ee qabaan baan aniga la qabaa harajaynaaya shaqada hadda bilaabatay in ay dib ka bilaaban doonto insha Allah taala markaan aan waxaan ku daraa qodobka iida xalay waajin meeshan asbaranta aad u badan oo maanta ka soo baxnay shir aan kula hadlayno dhalinyarada Bahgari aan uga waramayno ayaamahan la soo dhaafay shirarkii ka dhacay ee aadan dhagax ee nagu soo calaamad saareen aniga qaas ahaan ma had lagu soo calaamad saaray lagu soo qaaday waxaan ma had qaas u celinayaa odayaashii way aragii wax garadkii sida dhiiran noogu calaamad saaray noo garab istaagay oo hawshan la qabtay taas kadib waxaan ma had qaas u celinayaa dhalinyartii iyo gabdhihii oo udub dhaxaad iyo lafdhabar u hawshan aan maanta ku jirno oo hawl dadka dhan ay u baahan yihiin Soomaali dhan iyo Bahgari dhan iyo inta maanta meeshan ka soo qayb gashay ay u baahan yihiin sidaas islaamada waxaan u mahad celinayaa raggii musharaxiintii oo ka koob yahay madaxweynaha current sitting MCA Bunow Aadan Bunow nin la yiraahdo Dr. Ducaale iyo Cabdifataax Dhuwow Faatax Mucaadeer waxaad qaasan u celinayaa sida ay nagu tanasuleen waxaan diyaar u nahay sida ay nagu liseen inaan ugu hambayno iyagana sidaas isla mid waxaan mahad qaas u celinayaa dadkii magaalada nagu soo dhaweeyay noo soo baxay noo dabaaldegay ee soo dhaweeyay go'aankii duqeyda iyo go'aankii odayaasha wax garadka sidaas isla mid waxaan baaq u dirayaa reer Dajabula guud ahaan anigoon kala saarin inay mar walba saas noo soo baxaan isaas noo soo dhaweeyaan anigana waxaan diyaar u nahay inaan u howlgalno si Ilaahay nagu ogyahay oo daacad naga oo magaaladana wax qabadkeeda iyo dadka unity-giisa dadka isku xirnaashihiisa aan koow ka dhigno